nabadgelyo saaxiibayaal, halkan waa Hami Media Group. Anigu waxaan ahay Ibraahim Jamuuni. Maalinku waa Isniin, taariikhda milaadiga waxa ay ku beegan tahay 3 bisha January sanadka 2022. Waxaad ku soo dhawaataan akhbaraadkii ugu dambeeyay ee naga soo gaara caalamka iyo Soomaalida. Waxa ugu dooran shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. xiisad ka taagan beledweyne iyo ciidamo isku hor fadhiya. madaxweynihii hore ee Hirshabelle oo weerar afka ah ku qaaday madaxweyne Farmaajo iyo Kenya oo ka hadashay weerarkii Al-Shabaab ay ka geysteen Lamu. akhbaraadkaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan ayaad ku daawo doontaan warkeena si aad daawadow. haddii ay tahay marka kugu horreysa booqashada halkan, fadlan subscribe gareebarteena YouTube, la garee fiidiyowga noo la wadaag saaxiibadaada page-keena Facebook, lag iyo follow ku ruux dhiirgelinaya inoo tahay aad ayaad u mahadsan tahay. ugu horreyn warkeena aynu ku bilownay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo Ethiopian ah. xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay weerar madaafiica ku qaadeen saldhig ciidamada Ethiopia oo ka tirsan AMISOM ay ku leeyihiin degmada Waajid ee gobolka Bakool. goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen jugta madaafiicda oo qaarkood ku dhacay xerada ciidamada Ethiopia ee ka tirsan AMISOM iyo agagaarkeeda, balse aysan caddayn karin khasaaraha ka dhashay. Al-Shabaab oo ka hadlay weerarkaas ayaa sheegay in 13 madaafiic ay la heleen gudaha xerada ciidamada Ethiopia, isla markaana khasaare xooggan ay ku gaarsiiyeen weerarkaasi, balse aysan jirin dad madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab. warar kale ayaa waxay intaa ku darayaan in ciidamada Ethiopia dhankoodu ay weerar madaafiica uga jawaabeen, isla markaana dhowr madaafiic ay ku tuureen deegaanada ku dhow degmada Waajid ee gobolka Bakool. wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada Waajid ayaa sheegaya in xaaladdu ay haatan tahay mid degan, balse maalmihii lasoo dhaafay ay kordheen weerarada Al-Shabaab iyo howlgallada ay sameynayaan ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya. dhinaca kale, shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa gudaha xarunta teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho maanta oo Isniina ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka. shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa dhammaan madaxweyneyaasha shanta ah ee dowlad goboleed ee ka jira dalka iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Filish. waxaana kala hore shirkan qaadacay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, balse maanta goobjoog ka ah kadib cadaadis ugu yimid wakiilada beesha caalamka. shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo dardargelinta doorashooyinka, daahfurnaanta iyo jaangooynta xilliga lasoo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. xubnaha golaha wadatashiga qaran ayaa dood adag ka yeelan doona caqabadaha haysta doorashooyinka. sidoo kalena warar soo baxaya ayaa sheegaya in madaxda qaar ee dowlad goboleedyada ay doonayaan in hal deegaan lagu soo koobo doorashada. shirkan u furmay golaha wadatashiga qaran ayaa kusoo beegmaya xilli lasoo gabagabeeyey doorashada aqalka sare, sidoo kalena la doortay xubno ka mid a golaha shacabka. doorashadaasi oo dad badan ay aad cabasho badan kaga keeneen. xiisad ka taagan magaalada beledweyne iyo ciidamo isu hor fadhiya. waxaa maanta xiisad dagaal oo u dhexaysa ciidamada dowladda iyo kuwa Hirshabelle oo hal dhinac ah iyo kuwa la magac baxay badbaadi Hiiraan ay ka taagan tahay xaalfado ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. xiisadan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay dagaal culus uu labada dhinac ku dhex maray deegaanka Qowlad ee duleedka beledweyne, balse ciidamada labada dhinac ay u soo wareegeen gudaha magaalada beledweyne. ciidamada uu hogaaminayay sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere ayaa xalay soo galay magaalada beledweyne, kuwa oo fariisin ka sameystay guryo u dhow garoonka kubadda cagta Laqanyo, halka ciidamada dowladda ay fariisin ka sameysteen meel aan sidaa kaga fogeyn isla garoonka Laqanyo. xaafadaha qaar ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ka dhacay dibadbaxyo ay dhigayeen qaar ka mid ah shacabka, iyagoo ku dhawaaqayay ereyo ay uga soo horjeedaan maamul goboleedka Hirshabelle. odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa ilaa iyo saaka ku jira xal u raadinta sidii mar kale loo baaqsan lahaa dagaal ka dhaca gudaha beledweyne, iyagoo doonaya in ciidamada is-hor fadhiya ay kala qaadaan. geesta kale, madaxweynihii hore ee Hirshabelle oo weerar afka ah ku qaaday madaxweyne Farmaajo. Maxamed Cabdi Waare, madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabelle, ayaa ka hadlay dhacdadii xafiiska ra-iisul wasaaraha ka dhacday 27 bishii tagtay, taa oo ra-iisul wasaaraha iyo mucaaradka ay ku tilmaameen inay ahayd afgembi fashilmay. Waare waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay ahayd mid aanan fududayn, ayna dhalisay dhowr arrimood oo ku soo korodhay siyaasadda Soomaaliya, sida in dastuurkii dalka la isku tuuray iyo in si bareer ah uu sharcigii dalka ugu tuntay madaxweyne Farmaajo.
hadalka madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle ayaa ku soo aadaya xilli weli uu jiro khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. dhanka kale Kenya oo ka hadashay weerarkii ay Al-Shabaab ka geysteen Lamu, ugu yaraan 6 ruux ayay xubno ka tirsan Al-Shabaab ku dileen deegaan xeebta Lamu ee dalka Kenya, waxayna sidoo kale dab qabadsiiyeen xaafado halkaa ku yiilay. booliska ayaa sheegay in dagaalyahanadan aad u hubeysan ay weerar ku qaadeen xaafad ka tirsan deegaanka lagu magacaabo Widu subaxnimadii oo geystay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac. sidoo kale boolisku waxa ay sheegeen in ay wadaan howlgallo baaritaano ah. weerarkan waxa uu daba socdaa weeraro dhowr ah oo ay Al-Shabaab ka geystaan gobolka Lamu ee xuduudda la leh Soomaaliya. Al-Shabaab oo goor sii horeysay sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi ayaa sheegay in ay ku dileen 20 ka mid ah askarta Kenya, walow aysan jirin cid xaqiijinaysa sheegashada Al-Shabaab. gunti iyo gabagabadii ra'iisul wasaarihii dalka Suudaan oo iscasilay. ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdulla Hamdok ayaa ku dhawaaqay in uu xilka iska casilay xilli ay socdaan dibadbaxyo ballaaran oo laga soo horjeedo xukunka militariga ayaa afgembi bilaabay bishii Oktoobar, waxaana Masar Hamdok saameeyay xilligaasi xabsi guri, laakiin dib loogu soo celiyay xukunka bishii xigtay kadib markii uu saxiixay heshiis cusub oo ku dhisan awood qaybsi. mudaharadayaasha diidan sida xaalku u socdo ayaa muddooyinkii u dambeeyay sii waday in ay wadooyinka gaafureegaan xilli ay dalbanayaan hoggaan siyaasadeed oo rayid ah. khudbad uu ka jeediyey telefishinka ayuu Masar Hamdok ku sheegay in loo baahan yahay heshiis cusub oo Suudaan ay uga gudubto xaaladda dimuqraadiyad. guud ahaan saaxiibayaal, halka ayaan ku soo afmeeraynaa warkii oo aad kala socoteen muuqaal baahiyaha Hami Media Group. warka waxaa aqrinayay Jamuni. tan iyo warkankiisa xiga noola kulante nabadgelyo.